أحمد محمد إسلام oo loo yaqaano Axmed Madoobe markii ugu horeysay ee la maqlo magaciisa waxay ahayd sanadkii 2006 xilligii midowga maxkamadaha isagoo kamid ahaa hogaamiyayaashii maxaakiimta Axmed Madoobe waxa uu noqday ku-xigeenkii hogaamiyihii u horeeyay ee Al-Shabaab iyo madaxii Ras Kamboni ee ururkaasi VOA-da uu la hadlay Axmed ayuu u sheegay ujeedada Al-Shabaab askarka Ras Kamboni waxa la siiyay ku-xigeenkii amiirka Al-Shabaab waxaana iyagu ay jagadaasi siiyeen Sheekh Maxamed Axmed Islaam Sheekh Axmed Madoobe Sheekh Axmed Madoobe oo joogay madasha lagu aasaasay Al-Shabaab ayaa iiga waramay wixii lagu wada hadlay markii ay sheegayeen waxay noqotay labada group oo wada fariisano fadhiga oo galay waxaan ku heshiiyay inaan system yaraan markii dadkii dhalinyarada ay markaas ishaarayeen in dad system jihaadi ah oo ka baxsan systemada kale iska socda inay ku yidhiin oo aan urur markaas isna ururkan hadda magacaan ay qaatay Al-Shabaab aan qaadanay Axmed Madoobe dabayaaqadii sanadkii 2008 ayuu aasaastay ciidamo u gaar ah oo loogu magacaabo Ras Kamboni isagoo sidoo kale Al-Shabaab ka codsaday inay la heshiiyaan si ay ula galaan dagaal ay kula jiraan dawladda xilligaas haddaba waxaan waraysi la yeelanay Axmed Sheekh Maxamed Islaam oo Axmed Madoobe loo yaqaan oo kamid ah madaxda Xisbul Islaam ee ka taliya magaalada Kismaayo walaalahan waxaan ugu yeeranaa Shabaab ma maamulka Kismaayo ka sii jiray Shabaab waxaan ugu yeeranaa inay yimaadaan miiska wada hadalka oo arrintan xal nabadgelyo lagu dhameeyo arrintan dad walaalahan arrintaas waxaan leeyahay camalkii jihaadka Soomaaliya ka socday bay dhibaato ku tahay waa gartay waxaan ka faa'iideysanaysaa oo maanta aadada sido iyadoo Burundi iyo dawladda ay joogeen dadkii camalkan ku jiray islaamiyiinta ayaga maanta la isku soo wajaho ballamihii laga baxo iyada loo soo urursado Axmed Madoobe isagoo ah madaxweynaha Jubbaland ayuu si xirfadaysan u sheegay inuu dagaal ku qaadayo deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada maamulkaasi hadalkaasi waxa uu ahaa mid aan wadan wax ficil ah waxaan dadkeena ku soo doonaynaa madaxyaal arxan laawayaal danaystayaal alla cadaabayaal awarkaasaan maanta dadkeena waxay badeen iyo dalkeena waxay badeen taa waxaan u farayaa Shabaab kadib doorashadiisa 15 May 2013 Axmed Madoobe waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ay dadka u siman yihiin Kismaayo maanta inkastoo Soomaaliya iyo marti kuma noqon doono saaqaraad magaalada Kenya taas waa mid aan kaga duwanahay aan doonaynaa model Soomaaliya ugu noqonaa Axmed Madoobe wali waa sargaal ka tirsan Al-Shabaab maadaama uusan sheegin meel uu kaga baxay haddaba sidee lagu aaminayaa Axmed Madoobe oo soo maray marxaladahaas kala duwan soo xidhay shaarar kala duwan inuu mar kale isku soo sharaxo madaxweynaha maamulka Jubbaland mise u qalmaa in mar kale lagu aamino madaxtinimada Jubbaland